qof walba adduunka saaran labo haysta laba garab labada garab uu ka soo unkamayo oo ah hooyo iyo aabo marka mar walba wallahi saxastana assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kusoo dhawaada channelkayga Ahmed FJ official aad iyo aad baa idin salaamay asxaabta qaaliga meel walba adduunka ka joogtaan maanta iyo muuqaal cusub muuqaaladeen hore uu ka duwan yahay waxaan jeclaystay bal in walaalkii liibaan isaguna ma garanaysaa oo idin salaamo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan Soomaaliyiin halka ku xiran channelka Ahmed FJ aad baa idin salaamayna saa oo la socotiin badankiina saa oo la socotiin inta hadda videogan daawanayso ogaan doonta laamiya walaalkay Ahmed wuxuu la maqnaayaan tan waxay ahayd taasi ayaa gashay geeri ayaa gashay waxaana dhintay aabihii waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul maut Ahmed walaal aabba Allah u naxariisto jannadii firdaws Allah ka waraabiyo kitaabkiisa gacanta midig Allah ka siiyo waqti Ahmed dheer uu maqnaa oo maalmo ah waad ogtiin qofka markay tacsi gasho حوايدي إلا يتعسير سيكون لمانة سو وموتوس الدوغيو اللي اسمه أركيو وك أحمد سولو أصحاب هذا كله يكون حسين قاركون كل ما صعدان وهذا يكون أركي يعني كأحمد وعيان تنلواي يعني أنا جنا كل إنستغرام كي يوتيوب كي هي بشونا وكوشة أيو أبان لي إن أحمد يجري قشة بدل كون التعسير يكون قريب سنين أحمد يعني قرمي ودن كي كودن بيسي ياب أركتيس والله القالي هرت والله هدي waxa igu dambeysay 2 sano ka hor baa igu dambeysay maalinkaas aan ka iimaanayna waxa xasuustaa horta maalin aad u qeyraysan bahayd badan leed adigana waqtigaagii iyo maalinkaagiiba noola qaadatay si qurux badan aad igu soo tacsiyadaysay Allah ku sharfaan ku leeyahay dhamaan ummadda muslimiinta meel walba adduunka ka joogan qaasatan asxaabteeda qaaligaana qof youtuber iyo qof igu xiran iyo in aan igu xidhneenba waxaan leeyahay Allah idin sharfo sida quruxda badan la igu soo tacsiyadaysan inta aan ogeyn insha Allah haday ogaan doonaan horta walaal qaali aabahay waxa jirta waqti fara badan aan soo qaadan waay mar walbaabana qof walbaaba adduunka saaran labo haysta laba garab labada garab uu ka soo unkamayo oo ah hooyo iyo aabo labada garab marka waxa jirta labada garab inaan meel ku wada noolaano ana ugu yara xaafadayada waqtiga aadka u fara badan ilaahay ma garanaysaa in siiyana waxaan wada qaadan jirnay hooyada iyo aabahay marka aabahay waxa dhacay 7 sano oo adduunkan saarnaa 7 sano jir waxa 7 sano adduunkan saarnaa 7 ka sano laga bilaabo ilaa 30 sano oo dawladda u shaqeynaya yani uu dhaqtar ahaa inta marka laga rabo intii kale qof weyn iska noqday oo daa ma garanaysaa lugaha iyo jilba xanuun iyo xasaab ka dhacay guriga iska fariisto uu iska nasan jiray shaqadiisina halkii uga socotay marka mar walba waxa ku garbin jiray ama se waqtiyada aan ku soo wada qaadan inaan caawiyo meelo fara badan isku raacno mar walbaabana wallahi wuxuu igu dhiirigelin jiray inaan rabbiga raali geliyo wixii fiican wuxuu ugu oran jiray waxaad raganimo ku yeelanaysaa ama se ku guuleysanaysaa marka aad rabbigii raali geliso oo rabbigu istaagto mar walba xataa aan soo kaco salaad subaxna ahaatay wallahi isoo quraan aqriyay quraan dhageysanaya rabbigiisa raali gelinaya ayaa ma garanaysaa dhici jirtay waqti aad u qurux badan waan soo qaadanay mar walba hadal walba oo dhahana waxa ahayd in uu ma garanaysaa guusheeda iyo horumarkayga ay ku jirto inaan ilaaha weyna adduunka ay keenay aan raali geliyo marka waxa leeyahay Allah au naxariisto kitaabkiisana gacanta midig Allah ka siiyo isaga iyo ummadda muslimka ee geeriyootayba ama sadhimatayba marka asxaabta qaaliga waalidkaaga de waqti fara badan la soo qaadanaysaa waqti fara badan soo wada qaadanaysaa marka mar walba wallahi soo xustana de yani qalbigayga si kala noqdo ma garat Ahmed horta Soomaali baadaan nahay maanta waa dhif naadir qofkii hooyo aaba ee uu noolyihiin adduunka saaran yahay anigana ay jeedid waxa waaye inkastoo adi aaba hadda geeridiis aad soo duuganin oo aad maanta ka soo maqan tahay aniga waxaan kamid ahaa aabay dadka god ka dhigay oo soo aasay ayadoo 2 isbuucna aan ka soo wareegin walaalkay 6 bilood lagu dhuftay ayadoona bil ka soo wareegin awoohay geeriyood hal mar aniga familkii dhan macnaha mar shock ah ishin guriga una hal looga baxay marka sidaa Soomaali u nahay badana waa dhif naadir hooyo aabo qof wada nool marka ma sha Allah aabo wuxuu ku dhintay 7 sano
naxariisto janno allah ka waraabiyo anigana aabe konton iyo laba jir u ahaa markuu asagana uu geeriyoonayay ilaahay naxariista leh waxa kaliya maanta nagala baahan yahay waa in mar walba marka salaada aan tukano aan u duceeyno waana dareemi karaa xanuunka adig markaas aan dareemayso waqtigaas aniga xanuunka dareemaya dareemaysa waana sababta aan kula mar walba yani mar walba horta waad igalab istaagtay waa ila soo hadli jirtay si aad ii dhiirigeliso saaxiibkay qof aad u qaaliya tahay qofkuna hadduu qalbi wanaagsan yahay dadka qalbi wanaagsan mar walba ka agdhow si yani aad fariimo fiican iyo waqti fiican wada qaadataan aad iyo aad waxa sidoo kale halkan tacsi u marinaynaa dhalinyaradii ku geeriyootay magaalada Muqdisho Allah u naxariisto leen aad iyo aad gacanka xaq darnaya dishay cadawgana ummadda Soomaaliyeed Allah ka qabto aad iyo aad dhalinyaro aad iyo aad u qurux badan mustaqbal qurux badan lahaa hiigsigooda wajigooda laga dheehanayo waxaan leeyahay intii Soomaaliyeed dhan ayaa ka baxeen kama bixin familiyada oo kaliya waxaan leenahay Soomaaliyeed oo dhan samir iyo iimaan Allah naga siiyo sidoo kale Ahmedna asaga halkan ayuu tacsi u marinaya dhamaan intii Muqdisho ku geeriyootay insha Allah soo duceyn doona waxaan idin leenahay naxariistii janno Allah idin siiyo amiin insha Allah waxaan kaloo idin soo gudbinaa ama advice yar idin ka siinaa aniga horta marka horena waa u tacsiiday oo waa soo dhigay YouTube-ka iyada qoraal ahaan imkana waxaan leenahay Allah ha u naxariisto ummadda Soomaaliyeedna ilaahay ha isjeclaysiiyo oo magaranaysaa isku wanaajiya leenahay naxariista jannana ilaahay ka waraabiyo kitaabadooda midigta ka siiyo cadawgana ilaahay ka qabto marka talada yareen idin siin la waxa weeyaan qof walba adduunka saaran wuxuu ka horumaraa marka runta la isku sheego ama se uu ku guuleystaa ama raganimadiisu ay ku jirtaa inuu waalidkiisa raali geliyo inta ay nool yihiin inuu mar walba ka ag muuqdo waxay u baahan yihiin ama se maanta garabkay uga baahan yihiin si oo isaguna berito la garab ciyaalkiisa uga helo inuu garab istaago ومر والبابا ديري قليو والله مر والبابا ليبان ودي مركان aabahay meel isku raacno ama gacanta aan hayo kala ma aragtay dadku way ducaan jireen waxayna idhii jireen ubadkaaga saa ku sameyn doono ka ducaysa la igu dhigi jiray mar walba si yani aad u guuleysato isagana mar walba waxa uu ducaan jiray hatta maalinka ka soo baxay uu ilmeynay ha tagin wala wallahi garabkayga iska fadhi laakiin waqtiga iyo waayaha ayaa am garansan iskaan ag joojin waay marka ummadda Soomaaliyeed intii waalidka ugu nool waxa leenahay waalidkiina garab istaaga oo waalidkiina xaq dhowra oo ilaashada si yani aad u guuleystaan aakhiri adduunba ilaahayna ku xidhnaado oo magaranaysa mar walba u duceeyo waalidkiin sadaqana ka bixiyo insha Allah aad iyo aad insha Allah wama sintiin Ahmedna wixii ugu dambeeyay qalbigiisa ku jiray oo la wadaagi lahaa familkiisa halkan ku xiranna idin la wadaago waxaan idin kaga tageynaa tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh sidaas